السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا kaga hadlaynay cuntooyinka u wanaagsan qofka inuu isticmaalo. barnaamijkan maanta waxaan kaga hadli doonaa qaybteena koobaad oo taariikhda noqon doonta 7 cunto u wanaagsan qofka inuu ku kordhiyo miisaankiisa ama weightkiisa loo yaqaano, taasoo qofka doonayo inuu miisaankiisa kordhiyo. taxanahan qaybteena koobaad waxaan kaga hadli doonaa 7 cunto oo u wanaagsan qofka dhuuban inuu isu kordhiyo miisaankiisa. waxaa jira miisaankooda aad u hooseeyo 50 ka yar, kuwaas oo raba inay miisaankiisa kordhiyaan. daawada marka horeysa subscribe noo saar si ay nagu noqoto dhiirigelin wanaagsan. cuntadeena koobaad waa caanaha ama waxa afka qaado lagu yiraahdo milk. caanaha naturalka ee ka helo wadankeena, caano geel iyo caano lo, waxay tooniba ahaato faa'iido weyn ayay ku tahay adiga inaad isticmaasho caanahaasi. caanaha ama waxa loo yaqaano milkiga afka lagu yiraahdo muhiimad ayay ku leedahay adiga. milkiga waxay isugu jiraan waxyaabo fat ah ama baruur, carbohydrate iyo protein ayaa ku jira. sidoo kale waxaa ku jira waxyaabo vitamins ah, sidoo kale waxaa ku jira nutrients, sidoo kale waxaa ku jira calcium, taas oo u wanaagsan dhismaha murqaha qofka haddii ay murqihiisu dhismaana waxaa hubaal ah inuu kordhayo maaskiisa ama culayskiisa. caanuhu waxay isugu jiraan saan soo sheegnay fat, carbohydrate iyo protein, vitamins iyo minerals, calcium taas oo ah mid adkaysa murqaha qofka. marka waa cuntadeena koobaad inaad isticmaashana aad bay kugu wanaagsan tahay hadduu miisaankaaga hooseeyo. cuntadeena labaad ee kaga hadlayno barnaamijkeena waxa weeyaan waa proteins, waxyaabaha loo yaqaano proteinsku waxay naga caawisaa inay dhisto murqaha jirkeena. sidoo kale waxaa ku jira waxyaabo extra sugar ama sukar dheeraad ayaa ku jira. proteinka wuxuu ku jira cuntooyin kala duwan sida cuntooyinkan inooga muuqda kalluunada, hilibka cas, hilibka cad iyo ku jira. marka wuxuu kordhiyaa miisaankaaga inaad isticmaashana aad bay kugu wanaagsan tahay. inkastoo aanay wanaagsan inaad si daba joog u isticmaasho hilibka iyo hilibka uu keeni karo keliyaha inuu ku istaajiyo, haddana muhiimad ayay ku tahay inaad isticmaasho markaad tahay qof dhuuban. hilibkuna wuxuu kordhinayaa miisaanka jirkaaga. cuntadeena saddexaad ee kaga hadlayno barnaamijkeena waxay noqon doontaa waxyaabaha loo yaqaano rice-ka ama loo yaqaano bariiska. bariisku wuxuu ka kooban yahay ilaa 200 oo loo yaqaano coloride maadada loo yaqaano, taasoo ah maanta u wanaagsan jirkaaga kordhinta miisaanka qofka. sidoo kale waxaa ku jira waa carbohydrate. isticmaalkeeda faa'iido ayuu ku leeyahay haddii aad doonaysid inaad isticmaasho bariiska oo laga helo xaafadaheena. markasta inaad isticmaashana aad buu wanaagsan tahay, miisaankaagana aad ayuu kordhinayaa. cuntadeena koobaad ee noo wanaagsan inaan isticmaalo si aan u kordhino weightkeena ama culayskeena waa hilibka cas. isticmaalka hilibka cas wuxuu ka yeelaa jirkaaga inuu noqdo mid miisaankiisu aad u sarreeyo, wuxuuna inaga caawiyaa inuu dhiso murqaheena iyo sidoo kale inuu noo dhiso weightka qofka ama miisaanka qofka. inkastaanu wanaagsanayn diin ahaan inaan isticmaalo hilibka cas. waa hilibka aan la karin ee lagu isticmaalo Itoobiya oo kale meelahaas. inaad isticmaashana qofka culayskiisa ama maaskiisa kor ayay u qaadaa. marka hilibka cad iyo hilibka cas ayaa la kala yiraahdaa. haddii aad isticmaasho hilibkeenan oo ka jira borotiino, kalluunka oo kale haddaad isticmaasho aad buu u kordhinayaa miisaankaaga. laakiin gaar ahaan hilibka cas oo lagu isticmaalo Itoobiya inaad isticmaasho muslim ahaan ma wanaagsana, laakiin wuxuu ku jira cuntooyinka kordhiya miisaanka qofka. cuntadeena shanaad ee kaga hadlayno barnaamijkeena waa nutska ama waxa loo yaqaan nutter baa loo yaqaanaa. waa nutkeenan iyo ku dibadda laga helo oo la shiido iyo ku darida waxyaabaha saladiska oo lagu shiido. wuxuu kordhiyaa miisaankaaga, wuxuuna kaa dhigayaa qof miisaankiisu aad u sarreeyo. dad ahayd qof dhuuban oo isticmaasho looska
wuxuu kordhinayaa miisaankaaga iyo cufka jidhkaaga, waxaad noqonaysaa qof aad u buuran. Cuntadeena lixaad ee kaga hadlayno barnaamijkeenan waxaa loo yaqaanaa whole grains baa loo yaqaanaa. Whole grains waxaa la isku yidhaahdaa waxyaabaha garowga, digirta yaa la isku yidhaahdaa whole grains. Whole grains haddii aad isticmaalka whole grains wuxuu kordhinayaa miisaanka jidhkaaga, sidoo kale wuxuu ka kooban yahay carbohydrates. Marka aad buu ugu wanaagsan yahay inaad isticmaasho waxyaabaha loo yaqaano whole grainska. Cuntadeena toddobaad aan isticmaalayno waa cuntooyinka ku qaniga ah waxyaabaha loo yaqaano starchta. Cuntadaasay ka mid tahay potatoes, baradhada oo kale, corns waxaa loo yaqaano. Haddaan isticmaashana aad bay kugu wanaagsan tahay. Waa cuntadeena toddobaad, aad bay kugu wanaagsan tahay inaad isticmaasho. miisaankaagana waxay ka dhigaysaa mid aad u sarreysa. barnaamijkeena qaybteena koowaad halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa cuntada kaga hadlaynay. qaybta labaadna waxaan kaga hadli doonaa 7 cunto oo kale oo kordhinaya miisaankaaga. mahadsanid daawad.